luqadda jirka waa luqadda ugu badan kuu sahlayso inaad fahamto qofka ku hortaagan. luqadda jirka si fudud waxaad ku ogaan kartaa qofka wax gudihiisa ku jira uu kaa qarinayo. magacaygu waa Jaabir Cusmaan JB, halkan waa madashiina xikmadso. muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa siraha ugu muhiimsan luqadda jirka. qaybteena koowaad waxaad ku baranaysaa siraha ugu muhiimsan luqadda jirka kuu sahli doonto inaad ku dhisto korna ugu qaado kalsoonida naftaada. qaybta labaad isla muuqaalkeena waxaad ku baran doontaa siraha ugu muhiimsan luqadda jirka kuu sahlayso inaad qofka ku aqriso kuna ogaato wax gudihiisa ku jiro sida ugu fudud. ku soo dhowow muuqaalkeena maanta. daawade labadan tilaabo ee aan soo wado haddii aad samayso joogtayso waxa ay kaa dhigaysaa qof awood leh, kalsooni buuxdana ku qabo nafsadiisa. tallaabada koowaad, garkaaga inaad kor u qaado, yacni madaxaaga mar walba inaad kor u qaado. haddii mar walba madaxaaga aad hoos geyso dhulka fiiriso waxaa kugu sii badan doona kalsooni darada. mar walba ahaw qof madaxiisa kor u qaada, waxay ku siinaysaa kalsooni iyo awood dheeri ah. tilaabada labaad, eegmada. mar haddii aad barato eegmada buuxda, mar haddii aad barato qaabka ugu qaybin lahayd eegmada meel dad badan buuxaan adigoon dareemin cabsi iyo tartarig, waxay kaa dhigaysaa qof ku dhisan kalsooni iyo shakhsiyad ahaan. daawade luqadda jirka eegmada dadka aad eegayso waa hubka ugu weyn u horseedi karo inaad kalsoonidaada iyo shakhsiyadaada ku dhisato. qaybteena labaad waxaad ku baranaysaa daawada calaamadaha ugu muhiimsan ee luqadda jirka ee aad ku ogaan karto qofka kaasoo horjeeda waxa gudihiisa ku jiro sida ugu fudud. waxaan ku bilaabaynaa sida aad ku ogaan karto qofka hortaada joogo haddii uu nafis kugu dareemaynin ama kugu qanacsaneen ama uu kaa xanaaqsan yahay ama uu waxa aad weydiistay uu rabin inuu ku siiyo ama uu wax uu kaa qarinayo, iyo midda ugu daran oo ah in uu been kuu sheegayo. midda koowaad, qofka oo in badan dhegtiisa taabta. qofka aad la hadlayso haddii aad ku aragto in badan isagoo dhegtiisa taabanayo, ogow qofkaas waxa uu dhibsanayaa hadalkaaga ama waxa aad ku dhahday ayuu ka xanaaqay. waa qof aan rabin inuu hadalkaaga sii dhegaysto. calaamadeena labaad, qofka oo fartiisa isha mariya. haddii aad aragto qofka aad la hadlayso in badan fartiisa isha marinayo, qofkaas waxa uu rabaa inuu iska yareeyo hadalka ama waxa uu iska diido, yacni qofkaas waxa uu ku jiraa xaalad adag. waa qof wax aad weydiisatay laakiin maya aan ku dhihin oo shayga aad weydiisatay oo ka cagajiidayo inuu ku siiyo. calaamadeena saddexaad, qofka oo qoortiisa gacanta mariya. haddii aad aragto qofka aad la hadlayso in badan isagoo qoortiisa ama luquntiisa gadaal gacanta ka marinayo, waxay caddaynaysaa qofkaas inuu welwel badan dareemayo oo barashar saaran yahay, rabana inuu iska dejiyo welwelkaas. haddii aad in badan xaaladaas kusii aragto qofka aad la hadlayso waa qof wax weyn kaa qarinayo. calaamadeena afaraad, qofka oo labadiisa gacan isgeliya. haddii aad aragto qofka aad la hadlayso labadiisa gacan isagoo isgelinaya, qofkaas waxa uu dareemayaa kalsooni nafeed, waxa uu isku dayayaa in uu u dulqaato sheeko dheer oo caajis ah. haddii aad tahay qof hadal badan, ogow inuu kugu caajisay, isku day sheekadaad in aad xiise u yeesho. waxa aan soo gaaran qaybteena ugu xiisaha badneed, calaamadahan wanaagsan ee aan soo wado. haddii aad qof ku aragto inuu hadalkaaga u bogayo oo ku qanacsan yahay ama uu aad kaaga helay ama uu ku jecel yahay, waxaad ku ogaanaysaa daawade calaamadahan ee aan soo wado. midda koowaad, qofka oo salaanta xoog gacanta kugu qabta. ogow haddii aad aragto qofka oo salaanta xoog gacanta kugu qabta waa qof muhiim aad u tahay oo qiimo kuu haayo. calaamadeena labaad, qofka oo sunyaha kor u qaada. haddii aad aragto qofka aad la hadlayso sunyaha kor u qaadayo waa qof sheekadaada ka helay, waa qof kugu raacsan wixii aad u soo bandhigtay. cilmu nafsiga wax uu sheegaa sunyaha kor loo qaada inay caddayn u tahay saddexdan: hambalyeyn, qofku kugu hambalyeynayo horumar aad gaartay; labo, isku raacis, qofka kugu raacaya waxa aad u soo bandhigtay; iyo ka helitaan, qofkii uu xiise ku hayo oo aad kaaga helay. calaamada saddexaad, eegmada dheer. haddii aad aragto qofka aragti dheer kugu eegayo, waxay caddaynaysaa qofkaas in aad ku weyn tahay, muhiimna aad u tahay, aadna kaaga helay, adigana isku day in aad mar kaaga eegto. midda ugu dambaysa, qofka oo qoortiisa dhinaca u leexiya. qoorta waa meel xasaasi ah, qofka halis gelin karta haddii uu caadaysto in uu mar walba sameeyo. balse daawade haddii aad aragto qof aad la hadlayso oo qoortiisa marba dhinac u leexiya, waxay caddaynaysaa qofkaas inuu ammaan kugu dareemayo oo hadalkaaga xiise u haayo. ugu dambayn, haddii aad halkan nala soo gaartay aad iyo aad u mahadsan tahay. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo fiir janaalkiina subscribe dhaho, sidoo kale tiktokeena follow soo dheh. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, asxaabtaada la wadaag sheer dheh. intaan muuqaalkan lecinaa ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.